asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada maanta wasiirka amniga gudaha Mareykanka Kristi Noem oo shir jaraa'id ku qabanaysay magaalada Los Angeles oo aan ognahay 6 maalmood ee la soo dhaafay inay ka socdeen mudaharaadyo looga soo horjeeday ciidamada ICE howlgallada ay ku qabqabanayaan dadka sharci darrada ah ee gobolka California maadaama ciidamada ICE ay hoos yimaadaan wasaaradda amniga gudaha ayaa iyadoo shirkii jaraa'id qabanaysa oo hadlaysa waxaa isku dayay inuu su'aal weydiiyo mid ka mid ah senatarada Mareykanka ah ee laga soo doorto gobolka California waa labada senatar waxaan ognahay 100 senatar inay Congress-ka aqalka sanadka ay yihiin gobol kastana kontonka gobol laba ayaa laga soo doortaa marka labada senatar ee California laga soo doorto mid ka mid ah oo la yiraahdo Alex Padilla ayaa isku dayay inuu su'aal weydiiyo markaasi kadib ayaa ciidamada Secret Service-ka ee ilaaliya wasiirka amniga gudaha Kristi Noem ay qabteen waxayna xoog uga saareen goobtii shirka jaraa'id ay ku qabanaysay waxaana la geeyay hallway-ga halkaasi oo ciidamo FBI ay joogeen oo loo dhiibay xabadkana dhulka loo dhigay lana jeebay waa senator waliba senatorkan booskii Kamala Harris markii ay madaxweyne ku xigeenka noqonaysay qofkii lagu bedelay waa senatorkii lagu bedelay markaas kadibna doorasho ayuu ku soo laabtay marka waa senator gobolka California labada senator ee laga soo doorto kamid ah marka wasaaradda amniga gudaha afayeen u hadlay qoraal ay soo saartay waxay sheegtay senatorka dhowr jeer ayaa la yiri dib u deg isla markaana ciidamada Secret Service kuma aysan aqoonin waxa loo maleynayay inuu doonayo inuu weeraro wasiirka amniga gudaha sidaa darteed ayaa loo qabtay oo loo xiray markaas inkastoo aan xabsi la geynin laakiin waa la jeebeeyay markii jaabadii laga furay kadib oo wasiirka amniga gudaha ay kulankeedii dhameysatayna shirkeedii jaraa'id 15 daqiiqo oo kulan ah ayay la yeelatay waana senatarkaasi la yiraahdo Alex Padilla isagana waxa uu sheegay shir jaraa'id oo qabtay markii jaabada laga furay kadib waxa uu yiri anigoo senator Mareykan ah haddii anigoo isku dayaya inaan su'aal weydiiyo wasiirka amniga gudaha sidaas la ii galayo maxaad u malaynaysaa dadka sharci darrada ah ee beeraha ka shaqeynaya shalay waxaan arkaynay inay soo baxayeen California dad beera ka shaqeeyo ciidamada ICE beertii dhexdeeda ay ku bursanayaan kuwa kale oo Nebraska Omaha ka shaqeeyo meelihii hilibka lagu qalayay 80 qof laga soo qabto xitaa la arkayay baagadihii qadadooda ay ku wateen oo kaliya meesha ay ku qadeeyaan iyagoo yaala oo boorsooyinka halkaas yaalan 80 qofna la xiray marka waxa uu yiri maxaad u malaynaysaa dadkaasi marka sidee ula dhaqmayaan maamulkan waxa uu yiri waan la xisaabtami doonaa sidaas ayuu yiri markii jaabadii laga soo furay oo la soo daayay kadib marka maamulkan hadiiba senator sidaas loo galayo inta xoog lagu qabto garbaduub loo xiro la jeebeeyo kadibna la iska sii daayo si maxaad u malaynaysaa marka in dadkan sharci darrada qabqabashadooda marka bal markii la xirayay muuqaalkan kooban ee la daawada iyo sidoo kalena markii la soo daayay kadib hadalkii koobnaa uu halkaasi ka jeediyay senatorkan la yiraahdo Alex Padilla and balancing. Sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your. I also want to hands off. How many of our ICE agents have been shot? On the ground. Hands behind your back. Hands behind your back. If you let my hands go, I put behind my back. All right. Cool. Other hand. Lay flat. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. I was there peacefully. At one point, I had a question. And so I began to ask a question. I was almost immediately forcibly removed from the room. I was forced to the ground. And I was handcuffed. I was not arrested. I was not detained. I will say this. If this is how this administration responds to a senator with a question, if this is how the Department of Homeland Security responds to a senator with a question, you can only imagine what they're doing to farmers, to cooks, to day laborers out in the Los Angeles community and throughout California and throughout the country. We will hold this administration accountable.
xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira labada aqal aqalka hoose iyo aqalka sanadkaba arrintan waa ay cambaareeyeen waxayna yiraahdeen waxaan uga baahannahay in raaligelin uu ka bixiyo maamulka Trump marka maamulka Trumpna waxay leeyihiin qof kasta oo isku dayo qof mas'uul ah in uu isku dayo inuu weeraro sharciga ayaa lala tiigsanaya marka wayna arki doonaa sidoo kalena aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha kale soo kordha haddii aad leedmo